waxaanu ku sugannahay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa. Tirada codadka ee gobolka Maroodijeex ayaa ilaa haatan socota. Barkhad Jaamac Batuun waa qofka loogu hadalhaynta badan yahay Somaliland oo dhan. Guud ahaanba Soomaalida dhulka ay degto oo dhan. Sababtuna waxay tahay inuu u tartamayo xilka mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland. Haddaba Barkhad saddexdii habeenimo waxa uu ku jiraa operationka ama hawlgalka tirinta codadkiisa iyo goobihii looga codeeyay isagoo aan nasan. waxaanu ku sugannahay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa. Tirada codadka ee gobolka Maroodijeex ayaa ilaa haatan socota. Barkhad Jaamac Batuun waa qofka loogu hadalhaynta badan yahay Somaliland oo dhan. Guud ahaanba Soomaalida dhulka ay degto oo dhan. Sababtuna waxay tahay inuu u tartamayo xilka mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland. Haddaba Barkhad saddexdii habeenimo waxa uu ku jiraa operationka ama hawlgalka tirinta codadkiisa iyo goobihii looga codeeyay isagoo aan nasan. bal dareenkaaga ku weydiinaya Barkhad xilligan saddexdii habeenimo adigoo dariiqa taagan. wallaahi waa dareen muujinaya farxad iyo guul. horta marka koowaad waxaan doonayaa iyadoo maxamed sheekh elig aad sheegtay iyadoo saddexdii habeenimo ay tahay ciidan ina ilaalinaya aanay jirin, cidina qashqashaysa aanay jirin, nabadgelyo aynu magaalada bartankeedii ku marayno, nabadgelyo haysanno, walla wax loo dhigaa ma jirto oo wix ilaahay loogu mahadnaqo. dhinaca dalalka kale jaarkeenna dadka musharaxiinta ah cabsi badani ay gasho, gaal la raaciyo ilaaliyo amnigooda. anigu waxaan ku faraxsanahay inaan caasimaddii saddexdii habeenimo dhex marayo. ilaahayna waxaan ugu mahadinaynaa nabadgelyada iyo wanaagga uu ina siiyey. ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo siyaadiyo. taasi waa ta nabadgelyada. ta kale saddexdii habeenimo dee waxaa la yidhaha ninkii seexduu siciid dibi dhalay Soomaalida ku mahmaadahay. waa dhab hadalhayn badani way jirtaa. ismahadin maayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu mahadinayaa inuu dadkiisa oo dhan ii sakhray. ummadda afka Soomaaliga ku hadashoo dhani meel kastoo daafaha dunida ka joogto waxay dareen weyn ka qabaan doorashada Somaliland. aad bay ii danaynayaanoo waan ogahay meel kastaba waa laygala soo xidhiidhayaa. waxaa kaloo iyaduna mucjiso ah shicibkii Somaliland gaar ahaan gobolka Maroodijeex bari galbeed koonfur inay ka midaysan yihiin musharaxnimadeeda iyo inay cod siiyaan. goobo aan ahayn deegaankan hayb ahaan ka soo jeedo ayaa codad badan oo Hargeysa ah aan ku hogaaminayaa sida la ii sheegayo ilaa xogogaalka walow aanan ka hor dhacayn oo komishanka aan weli sheegin. marka waxaan isleeyahay dadkii codka ku siiyey, dadkii milicda maanta oo dhan ku istaagsanaa, dadkii ku jeclaa inaanad halgankoodii hawsha kuu galeen aanad hagaldaacinaynin oo wakhtigaa heegana tahay tus. waa sababta keentay markaa inaan mas-uuliyaddii iyo ammaanadii ay dhiibeen aan wakhtigaa uula soo jeedo. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa mid horumar keena oo aan lagu hungoobin inuu iga dhigo. aad baad u mahadsantay. way Barkhad dadka iminka intaaynu wada soconnay xoogaa kooban waxa ku arkaya dad kala duwan. qof baa kula hadlaya mid komishankii iyo shaqadii soo dhammaystirtay. waxa ku arkaya qof iska socda, qof kasta guul buu ku rajaynayaa. qof baa kule waad ugu cod badanaysaa, mid baa kule adaa shirgudoon baa tegaysaa, mid baa kule goobtan joogay adaa ugu cod badan. qof walbaaba fariin buu ku farayaa. bal qiimaynta leeg bay dadkani kuu samaynayaan Barkhad ahaan? wallaahi waxay ii muujinaysaa inuu ilaahay arrintan xagga sare ka aqbalay. dadku waa markhaati ilaahay oo dhulka jooga. waxaan isleeyahay waa hawl ilaahay wato, waa dabayl xagga rabbaaniga ka socota. karti iyo aqoon iyo raganimo iyo xoog iyo xirfad iyo xeelad aan ragga qayrka iyo dheerahay maaha. waana imtixaan ilaahay igu eegayo. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo. muxuu ahaatay galgacal baa lai muujinayaa iminka niman saraakiil oo maxaa ahaatay gaadhka ah oo eriyadan waad arkaysay. waxaa arkaysay niman iminka komishankii ka yimid oo muraaqibiina oo iyaguna sheegayey. marka iminka ninkii bartanka xanaanada ina bootaan agtiisa ku taallay ogaa maanta waa kan iminka iigu bishaaraynaya ilaahay adaa ugu cod badnaa mana ogeyn. marka dee waa wax ilaahay loogu mahadnaqo iyo dee guul Somaliland ay gaadhay. waxaan anigu keligee sheegan karaya maaha. waan ku salaamayaa. thank you. waxaan guulaan keligee sheegan kara maaha. guusheeda adaa qaybka inay dhalato. waxa ka ah suxufiyiin fara badan, waxa ka ah culimada, waxa ka ah xisbiyada, waxa ka ah shacabka Somaliland, waxa ka ah xukuumadda. marka
waxaan isleeyahay maanta astaan qaran baad noqotay. barkhad maanta dadku safaf dhaadheer bay galeen cadceeddu waxay ahayd 36 centigrade degree yacni maalmihii ay ugu kululayd magaaladu ayay ahayd maanta bal waxaad nooga warantaa maxaa kuugu cajiib badnaa intii aad ku jirtay dadku saa ay ku wada salaamayaan ayaa meel kasta saasaa loogu taaganya barkhad haddaba maxaa kuugu cajiib badnaa maanta intii aad ku jirtay inaad kormeerto goobahaaga arrintu laba arrimood baa igu cajiib badnaa mid waxaan ku arkay xaafadda Siinay inan Maryan la yiraahdo oo curyaana oo naafaa cafwan ayaa aan arkay gaari ay ku socotay inta lagu soo jiiday inay timid maba arkaynin waan kormeer baan ahaa iyada ay yeedhay waxay igu tiri 4 habeennimaan safkaa galay anigoo qofka naafada cidaan u galayna waa adiga waxa markaa igu noqotay culays runtii ilaawina maayo insha Allah waan raadin doonaa nambarkeedan qoray waxa kaloo iyadana cajiib ahayd gabadh kuyuga daami ku jirta ayaa foolatay oo fooshi qabatay gabadhii waxa la geeyay xanaanada daami ilaahay fadligiisa wiil bay barta ku umushay wiilkiina barkhad ba u bixisay waa la soo sheegay waan tagay ilmihiina waan soo eegay waxa kaloo iyaduna mucjiso ahayd islaan indhala oo aan ku arkay halkan boqole kotoka oo iyaduna igu tiri inantii wadda baa ii sheegtay oo tiri aday kuu codaynaysaa imanayna garanayn waa inayn dhalaadahay marka dee wax fara badan oo ciidaa ka badan way jira laakiin saddexdaa dhacdun baan ka xusi karaya oo aan isleeyahay waa wax cajiiba aadna saxaafaddu waxay u qaadaa dhigaysay runtii arrintaa inaan gabadha kuyuga ku jirtay aniga dartay kuyuga u soo gashay ee safka ku dhex umushay ee lala cararay ee wiilka dhashay wiilkana barkhad u bixisay maasha Allah barkhad batuun iminka telefoonada kugu soo dhacayay ciyax aniga qaar igu soo dhacayayba dad qurbaha jooga ayaa oo aan cod lahayn oo xataa aan reer Somaliland ahayn oo cid walba leh ayaa kula barkhad hadaad soo saari weydaan waa idinka marka bal fariintan dadka gaadhay bal qaabkii u gaadhay bal nooga war wallaahi waxaan isleeyahay waan arkay iminka nin kula soo hadlayo aad u sheegayso tiri iminkan barkhad isalay waxaan isleeyahay dee ina mawcidahum subxa laysa subxa biqariib waaguba intuu beriyaa war ka hadhay waaqaca ka jawaabi su-aalahooda marka way arki doonaan insha allah wallaahi waxaan isleeyahay arrintu aniga way dhaafsanta waxay taagan tahay Somaliland bay sumad u tahay sumcadeeda arrintani Somaliland bay sumcadeeda ayay sumad u tahay ummadda afka Soomaaliga ku hadasha waxa la igala soo hadlayay madax dawladda ismaamulka Soomaalida baa ii soo hambalyeynay Djibouti baa la igala soo hadlayay madax igala soo hadlaysay meesha la yiraahdo Nairobi baa la igala soo hadlayay Central Somalia ayaa la igala soo hadlayay waxaba falanqeynayay wasiiro dawladda Soomaaliya ka tirsan oo Khadiija ay kamid tahay baaba doorashadeeda falanqeynaysay marka waa arrin ku weyn ummadda afka Soomaaliga ku hadasha marka waxaan isleeyahay waa 10 iyo cibra noqon doontaa caalamka soo jiita itiraafka Soomaaliland kana insha Allah way barkhad ugu dambeyntii adiga oo xisbi mucaarid afayeen ah adigoo xisbiga mucaaridada ugu waaweyn wadanka ama hadallada ugu badan idhaahdo adiga oo haddana xildhibaan baarlamaan u tartamaya adiga oo aan lagu kala eegin meelaha codka ka heshay ilaa imika meelahan xogta ku hayno inaad mucaarid tahay inaad muxaafid tahay inaad maaragtay barkhad tahay meel walba iyo cid walba xisbi walba aad cod ka heshay dadkii taageersanaa dareenkaa isaga laftiisu siduu kugu yahay yacni goob walba magaalada Hargeysa inta badan laga hadlayo cod baad ka soo heshay inta badan goobaha ugu badan ee imika hadda la tiriyay bal ka warantaa dareenkeeda waxba la sheegayay goobaha musharaxiinta kulmiya ay ka sharaxayeen la islaawo ugu cod badan yihiin inaan anigu kaba cod horeeyaba marka de maxaad ku sheegay adigu anu ma garanay waxaan ku sheego waa mucjiis marka waxaan ku cabira ma garanay laakiin alxamdulillah ilaahay baa mahadaasoo dhan iskale ilaahay baa makhluuqiisa noo faruriyo xidhay ilaahay baa na aqbalsiiyey ilaahaasaan u mahadinaynaa ani midhun baa ila gudboono waxay ila gudboon tacabkaas Somaliland ay gelisay iyo shacabkeeduba inaan ilaaliyo
inaan ku fara adaygo waajibaadka iga saaran iyo jawaab gobonnimo lana inaan ka bixiyo ficil iyo qowlba insha allah saad u aragtaan barkhad jaamac batuun dad badan baa ku soo xoomay dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay waana nasib wanaag caawa oon la kulanaan oo ah guddoomiyihii gaarka hambalyo waxaanu nahay waa raggii markii ugu horraysa ballan qaaday ballankiina waanu oofinay maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanay anigu tacarburuq baan imika ka imi muraaqib baan ahaa goobtayda wuxuu ka helay 17 cod maasha allah aad iyo aad buu wanaagsan iligow saacadda in taaganay waa 3 habeenimo waxay ka turjumaysaa dareenka ummadeed ee ay ummaddu dhammaanteed Soomaaliland ka qabto in uu bulshadan matalo baahi badan baa jirta dhalinyar badan oo reer Soomaaliland waxay ka turjumaysaa dhibaatada taala ee corruptionku ka yahay ee musuqmaasuqu labada ka yahay inay noqoto mid laga baxo dareenka laga filaya barkhad maanta waxa weeye dareen in waxaan dhibaatadii taalay soo jireenka ahayd ay meesha ka baxo inkastoo ay dadka reer Soomaaliland codkooda maanta dhiibteen sidoo kalena ay sanaadiiqdii ilaa haatan la tiriyay haddana ma jirto qof xildhibaan baarlamaan amaba deegaan wakiilla amaba deegaan loogu dhawaaqay wax natiijo ah mana jirto natiijo hordhaca oo qof ka mid oo haysta mana jirto xisbi ka mid oo wax natiijo haysta waa tirintu socotaa goobuhuna ay socdaan marar kala duwanna waxaad arki doontaan goobaha kala duwan ee gobolka Maroodijeex oo codadkooda loo gudbinayo degmada ama xarunta balse waxaynu eegi doonaa halka ay ku biyo shubato waqtiga natiijada la soo saaro wax natiijo iyo wax hambalyo oo ilaa hadda socdaana ma jirto balse barkhad jaamac batuun oo hawlgal ku jira oo shaqadiisa caadiga wata oo goobihiisa tirsanaya oo natiijada codadkiisa raadsanaya ayaa waxaan kula kulannay bartamaha suuqa caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodijeex oo uu ka tartamayo barkhad waa MMTV saacadu waxay ku siqaysaa 3 barkii habeenimo bal waxaynu eegi doonaa insha Allah wararka kale la xiriira doorashada iyo dadka codadkooda tirsanaya oo xildhibaano fara badanina ay ka mid yihiin waa aniga Maxamed Cabdiliga iyo Sakariye Saciid oo idin leh la joog nagu xidhnow MMTV goor kasta iyo waqti kasta si toos ah live iyo warbixinaha iyo wararka kala duwanba waa mahadsantiin